لله وإنا إليه راجعون. halkan waxaynu joognaa maanta aaskii marxuum Siciid Jaamac oo ahaa gudoomiye ku-xigeenka guurtida oo sidaa la sheegay nin dalka u soo shaqeeyay dhowr iyo 30 sano u dambeeyay ahaa oo kaalin adag kaga jiray oo ah gudoomiye ku-xigeenka guurtida intaasoo dhan guurtidana gudoomiyaheeda iyo guurtoo dhanna golahana waa ka tacsadeenaa kaalin weyn baa ku soo banaanaatay. waxay la tahay wuxuu u sii dambeeyaa odayaashii guurtida ee shirkii Boorame lagu soo doortay markii ka dambeysay oo u dambeeyay haddii mid iyo laba ma hubo wax ka dambeeya waa wada jiifaa wixii haray carruurtoodii baa joogta halkaa waxaa inaga baxay library weyn oo marka mashaakilka la xalilayo guurta loo tago garanaya wixii hore u soo dhacay waxa jiray sida loo galaa sida loo xaday inta la sheegay ee aamusnaanta iyo dulqaadka aan waxaan u dareeyaa nin hal adag markaad go'aan wada gaadhaan marka go'aan la gaaro ajaayib buu ku ahaa inuu halkii ku sugnaado ma ahayn dadka intuu go'aan gaaro haddana aroorta wax kale ku leeyahay mashkalada badan oo adag oo dal ku leeyahay oo uu galay waana ma goobjoog ka ahaa ama u dhawaabaa jiray wali Siciid intuu ballantii iyo shirkii la galay oo arrintaa go'aan ka qaatay uu dhan uga baxay lama ilaahay waxaan ugu rajaynaynaa inuu naxariis janno ka waraabiyo qoyskiisii iyo qarankana ilaahay samiriye iimaan ka siiyo halkiisina cawd khayr qabo allah ka soo dhawo inagana allah inooga daba naxariisto dad iyo dalba allah ina barakeeyo ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inagana aakhira inuu inooga daba naxariisto dad inoo barakeeyo caafimaad iyo khayr ilaahay dalka oo dhan iyo dadba inaga dhigo